Welcome to Maine Public News Connect, original news stories from Maine Public Radio, airing weekly in Spanish, French, Portuguese, Somali, and English. booqashada madaxweynaha toogasho ka dhacday magaalada Lewiston agaasimaha caafimaadka dadweynaha cusub iyo gaadiidka degdega ah. Asalaamu calaykum daawadayaal, maanta waa maalin Jimcaha bisha Agostan ay tahay 4. waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa qodobadii ugu muhiimsanaa wararka ee toddobaadkan, waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamuud Xasan. Madaxweyne Joe Biden ayaa toddobaadkii hore booqasho ku yimid gobolka Maine. waxa uu doonayay inuu ku muujiyo maalgashiga dowladda federaalka ee ku samaysay wax soo saarka iyo sidii u kobcin lahaa iyadana taageerada ay dadku hayaan siyaasaddiisa dhaqaale. Biden ayaa dad gaaray 150 qof kula hadlay Urban Manufacturing Corporation oo ah shirkad ku takhasustay dharka kulaylka u adkaysta. shirkaddu waxa ay in ka badan $600,000 oo maalgashi ka heshay barnaamijka American Rescue Plan oo ah qiyaastii $2 bilyan oo xidhmo kicin dhaqaale ah oo uu ansixiyey Kongareesku 2 sano ka hor xilligii uu jiray masiibada COVID-19. Kathy Leonard, aasaasaha ahna madaxweynaha Urban Manufacturing, ayaa sheegtay in xirmada kicinta dhaqaale ay ka caawisay ganacsiyada yaryar ee keedoo kale ahi sidii ay usii jiri lahaayeen xilligii cudurkaasi jiray. waxay sidoo kale ugu mahadcelisay sida uu Biden diiradda u saaray wax soo saarka Maraykanka, iyadoo uu gacan ka geystay bay tidhi kordhinta dalabaadka alaabta Maraykanka lagu sameeyo. Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah ra'yi ururin dhowaan la sameeyey ayaa muujinaya aqlabiyadda codbixiyayaashu inaan aragti wanaagsan ka haysan siyaasadda dhaqaale ee madaxweynaha. toogasho ka dhacday Lewiston. booliska gobolka Maine ayaa baaraya toogasho axaddii ka dhacday Lewiston oo ay ku dhinteen 2 qof. 1 qof ayaa ku dhintay goobta, qof labaadna wuxuu ku dhintay kadib markii loo qaaday xarunta caafimaadka ee Central Maine. toogashada ayaa la rumaysan yahay inay ahayd mid dhacdo gooni ah, waxaana ay boolisku dadweynaha u sheegeen in khatar ayna ku soo food lahayn waqtiga xaadirka shacabka degan. Maine Community Integration oo ah koox si dhow ula shaqaysa bulshooyinka soo galootiga Lewiston ayaa qoraal ku sameeyeen bartooda bulshada, iyo waxay ku faahfaahiyeen in khatarta hubku ay si tartiiba usii kordhayso deegaanka. kooxdu waxay sheegtay in ogaanshaha iyo wax ka qabashada sababaha keena dagaalada hubaysan ay tahay tallaabada ugu horreysa ee lagu ilaalin karo ammaanka bulshada. agaasimaha cusub ee caafimaadka dadweynaha Maine waxa ay dhowaan yeelan doontaa agaasimo cusub ee xarunta xakamaynta cudurrada ee gobolka, oo ah wakaalad door muhiima ka ciyaartay ka hortagga musiibada COVID-19 ee gobolka. Dr. Buthieri Va waxay ka imanaysaa Arizona oo ay ka ahayd agaasimaha caafimaadka guud ee qayb ka mid ah geyiga Navajo oo ah geyiga ugu ballaaran waddanka ee dadkii hore ee Maraykanku ay degaan. Va waxay sheegtay in mid ka mid ah mudnaanteeda ama ahmiyaddeeda ugu sarreysa ay tahay xoojinta kaabayaasha caafimaadka bulshada ee Maine oo leh iyadu kalkaaliyaal caafimaad dadweyne oo badan, shaqaalaha caafimaadka bulshada iyo barayaalba. qoyska baa asal ahaan waxay ka soo jeedaan waddanka Cambodia. haddaba Khmer Maine oo ah ururka bulshada Cambodia ee gobolkan ayaa soo dhoweysay warka magacaabisteeda, isagoo ururku sheegay in waayo aragnimadeeda xagga la shaqaynta bulshooyinka asaliga ahi ay muhiim u tahay wax ka qabashada kala duwanaanshaha caafimaadka ee saameeya bulshooyinka iyagoo aan caddaanka ahayn ee Maine. gaadiidka degdega ah. saraakiisha deegaanka Portland ayaa ka fikiraya bas cusub oo degdeg ah oo mara waddooyinka deegaanka, sida ku cad soo jeedin qabyo ah oo ka timid golaha dowladaha deegaanka Portland. jidadka basaska ee diyaarka ah ayaa bixin doona iyagoo adeeg degdeg ah iyada oo la marayo Portland, Westbrook iyo Gorham, si ka dhaqso badan loo marayo adeegga basaskii hore siday ahaayeen. waddooyinka hadda la doorbidayo waxay ka bilaabmi doonaan jaamacadda Southern Maine oo ku taalla Gorham, iyadoo lasoo dhex marayo magaalada Westbrook ay kuna dhammaanayso jidkani xarunta USM ee Portland ku taalla ka hor inta aan gaadiidku u gudbin magaalada hoose ee Portland. soo jeedintu waxay ku talinaysaa in adeeggan 10kii daqiiqaba uu bas maro goobaha basaska laga raacay u dhexeeya Portland iyo Westbrook, iyo in 20kii daqiiqaba uu bas maro goobaha u dhexeeya iyo Westbrook iyo Gorham. qorshuhu weli uma dhowa inuu dhammaystirmo, maadaama magaalooyinka ay khusaysaa ay u baahan yihiin
inay go-aan ka gaadhaan inta ay la eg tahay bannaanka ay u heli karaan waddooyinka basaska gaarka ay maraan waddooyinka basaska gaarka ay marayaan. Mashruucu wuxuu kaloo u baahan doonaa in la sugo iyadana maalgelin ka iman doonta dhinaca dowladda dhexe. Halkaad nagala socoteeni waa Main Public News. Waanad ku mahadsan tihiin inaad nala socoteen. Waa intaa iyo is arag dambe. Thank you to our excellent community partners for supporting and contributing to this program. We are happy to collaborate on this project with the monthly multimedia publication Amjambo Africa, our official media partner. Maine Public News Connect has been made possible by individual supporters and foundations from across Maine, as well as Koo and Patricia Ewan, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarkets, Maine Housing, and IDEX. Maine Public News Connect is made possible by Koo and Patricia Ewan, committed to bridging cultural differences in our communities. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together. Hannaford Supermarkets, celebrating the diversity of its employees, customers, and communities, and committed to fostering a welcoming environment. Together, they're greater than groceries. Learn more at hannaford.com. Has paying your mortgage been a struggle since COVID-19? The Maine Homeowner Assistance Fund could help. You may be eligible for up to $50,000 in aid. Apply today at mainehomeownerhelp.org.